Istaras diiqad ama cidhiidhi. Maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuca istaraska inagoo isdul taagi doona. Maxaad u taqaanaa istaraska ama cidhiidhiga? Se diiqad kasta ma xanuun baa? Ka bani aadan ahaan waxaynu nahay noole ka kooban dhinacyo badan sida dhinac fikir ah, dhinac caqli ah, dhinac jidh ah iyo qaybo kale oo badan. Haddaba nolosha aynu ku jirro waxaynu la kulannaa saacado badan oo isugu jiro kuwa farxad ah iyo kuwa murugo ah. Labada xaaladoodna jirkeennu waxa uu leeyahay nidaam difaac oo u diyaar garaysan xaaladda qofka uu galay inuu dib ugu soo celiyo xaaladiisii caadiga ahayd. Habkaana waxa loo yaqaanaa istaras ama diiqad. Istaras kasta ma xanuun baa? Istarasku inuu yahay mid xanuun ah ama mid aan xanuun ahayn waxa ay ku xidhan tahay xaaladda qofka ku keentay istaraska. Tusaale ahaan haddii aad noqoto waalid oo noloshaada ubad ku soo biiro, waxa aad gelaysaa xaalad istaras farxadeed adiga oo ka fikiraya ilmahaaga yar iyo xaaladiisa, sida wixii uu cuni lahaa, magaca aad u bixin lahayd, iyo dabcan noloshiisa sidii aad u kafaalo qaadi lahayd. Dhinaca kale haddii aad weydo qof kugu weyn sida waalidka ama lamaanahaaga ama ubadkaagaba, waxa aad gelaysaa xaalad istaras murugo ah, taasoo keenaysa inaad ka gudubto habkaagii caadiga ahaa oo ay waxyaabo badan iska beddelaan go'aan qaadadkaaga, fahmadaada iyo la dhaqankaaga kale ee noloshaba. Sidee baa istaraska murugada ahi saameyn ugu yeeshaa jidhka iyo naftaba? Sidaan hore u soo sheegnay, isbeddelka xaaladeed ee nolosha ku timaada waxa ay horseedaa istaras, waana wax iska caadi ah. Balse haddii uu daba dheeraado nooca istaraska ee qofku, waxay u horseedaa dhibaatooyin fara badan oo isugu jira xanuuno ku yimaada dhinacyada kala duwan ee qofka, sida xanuunada ku yimaada dhinaca muurka oo ay ka mid yihiin bipolarka iyo mood swingska. Xanuunada ku dhaca dhinacyada la xidhiidha galmada sida hamad yaraanta, taran la'aanta iyo beebaxa degdega ah, iyo xanuunada ku dhaca qalbiga sida werwerka, walbahaarka, niyad jabka iyo kelinimada. Xanuunada ku dhaca dhinaca fahamka, caqliga iyo awoodaha garaadka sida ilowga faraha badan iyo qofku inuu la kulmo fikrado fara badan oo iska hor imanaya oo ka dareemaya dhexdiisa. Sidee baan u maamuli karnaa ama ula noolaan karnaa istaraska? Waxaynu u kala qaadinaa laba qaybood, qayb ka hortag ah iyo qayb la dhaqan ah. Qaybta ka hortagga ah: 1. Waqtigaaga qaabee oo ku qaabee nolol maalmeedkaaga. 2. Ka fogow istaras kiciyaasha ama waxa kugu kicinaya xaaladda istaraska sida dadka dayrada badan. 3. Seexa hurdo nidaamsan oo habeenkii ah. Qaybta la dhaqanka istaraska ama dejinta: 1. Dadka la hadal, gaar ahaan dadka aad filayso inay dejin karaan xaaladaada. 2. Isku day marka aad xaalad istaras ah la kulanto inaad salaada xaggeeda u degdegto. 3. Akhri kutubta diini iyo maadiba. 4. Daawo barnaamijyada madadaalada ah. 5. Samee jimicsi. 6. Qor xasuus qor ku saabsan dhinaca diiqada aad dareemayso. 7. Ka fogow maandooriye kasta oo aad ka filayso inuu dejin karo xaaladaada.